إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد موضوعنا maanta cinwaankiisu waxa weeyaan العشرة بين الزوجين أما الحقوق بين الزوجين labada qof xaqa ay isku leeyihiin macnaha ma lilmar'ati wama calayha wama lirrajuli wama calayhi ninka iyo gabadhu mid walba waxa lagu leeyahay waajib baa saaran xaqna isagu leeyahay arintaasi sida diinteenu ay u dhigtay iyo sida u miisaantay iyo sida faa'iidada faraha badan ee ku jira aynu arki doonaa inaga oo soo qaadan doona aayaadka quraanka ah iyo axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka kol haduu shaygu diin yahay waxa laga maarmaana oo adoonnimada xaqiijinteeda kamida inaynu dhaqan gelino oo arrimahan aynu ka waramayna aanu ninkuna la yaabin gabadhuna aanay la yaabin waxaa xusid mudan xadaarada reer galbeedka ama gaaleed iyo kufaar waxa ay ku tilmaamaan iyagu oo barbar marka diinta ilaahay la hareer maro intay nagu dhibicdo waa inaanay ina weydaarinin diinta ilaahay gabadhu marka intaa dhageysato waa inay aqbashaa adoonnimadaanay ka mid hadduu qofku aqbali waana adoonnimadii muu xaqiijinin ninkuna waa inuu aqbalaa ugu horeyn xuquuqda waxaan soo horeysiin doonaa ta dumarka labaataneeye arrimood oo xaqna ah nicmo ilaahay uu siiyay dumarkana ah ayaynu soo tirin doonaa dabeetana waxaynu ku xigsiin doonaa dhowr iyo 10 xaq oo ninku uu leeyahay si kale haddaynu dhigno dhinacna kolka laga eego waa nicmo ilaahay uu siiyay adoomaha waa mar ilaahay ugu mana sheeganaya mar nicmay tahay mar waajib bay tahay mar xaq bay tahay wuxuu dhan way isugu jirtaa taw horeysa weeyaane quraanka kariimka ilaahay waxa uu ku tilmaamay dumarku inay leeyihiin xaqi iyaga ninku uu ku lahaayo kale inay leeyihiin dabeedna ilaahay baa wuxuu ku yiri aayada 228 ee suuratul baqara walahunna mithlu alladhi calayhima bilma'ruf walirrijali calayhinna daraja dumarkii waxa ay leeyihiin waajibkii lagu lahaa ama xaqii lagu lahaa kale iyaguna leeyihiin bil ma'ruf si sama ah oo wanaagsan ba xaqooda loo siin walirrijali calayhinna daraj xaquna raguna wuxuu leeyahay xaq dheeraada oo xagga maamulka iyo maareynta iyo habaynta ah taasi mid weeye ilaahay wuxuu tilmaamay midna inaanu qadinin midna muu ka calafgoynin xaqiisii mid waliba uu leeyahay xaqiisi raguna xaqoodii bay leeyihiin dumarkuna xaqoodii bay leeyihiin marka aayada ilaahay wuxuu ku cadeynayaa cidda xaq leh inaanay ahayn rag oo qura sida daraadeed ayaa asxaabigii qaaliga ahaa ee la oran jiray Abdullah ibn Abbas ilaahay ka raali noqday waxa uu lahaa inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li anigoo aayadan eegaya macnaheeda waxaan jecelahay markaan xaaskayga la kulmayo ama aan u tagayo inaan isu qurxiyo oo aan isu nadiifiyo aan isu wanaajiyo sida aanu jecelahay inay iyaduba isu kay qurxiso
waxaana laga faa'iidaysanayaa macnaha aayadda haddii iyadii nadaafad laga doono isqurxin laga doonay isaga in laga daayay ma aha ilaa wuxuu doonayaabay doonaysaaye xuquuqdeedii waxaa ka mid ah inuu ilaahay raggii faray inay dumarka ula dhaqmaan si aada u wanaagsan oo gaar ah markaasaa ilaahay waxa uu yidhi aayaddaa suuratu nisaa ku sugan wacaashiruuhunna bilmacruuf fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay-a wayajcal allahu fiihi khayra kahiira dumarka waxaa ula dhaqantaan si wanaagsan ula dhaqma haddaa waxyaabaha qaarkood ku karaahiyeysataanna waxaa karaahiyeysanaysaan oo khayr badani ku jiraabaa badan buu ilaahay subxaana marka halkaa waxaad aragtay amar buu ilaahay ku siiyey raggii inay dumarkii si wanaagsan ula dhaqmaan marka culamaau tafsiir waxa ay leeyihiin mucaasharadan iyo la dhaqankan wanaagsan ee ilaahay ragga uu faruuri dumarka kula dhaqma waa mid ka dheeraada in wax la cuno iyo wax la xidho iyo guri la galo arrin ka dheeraada wey intaasi way ku jirtaa oo dhar iyo dhuuni iyo guriba way leedahay gabadhii oo ninkay ku leedahay laakiin waxyaabaha kasii dheeraadka ah ee laga fahmayo waxaa ka mid a labada qof qalbigoodii waa inuu wada socdo oo qofka dareenkiisii la dhowro iyo qalbigiisii si uu nolol raaxo lahoo nafisla u qaadan karo oo aanu diiqad gelin waxaa ka mid a qofkan tarbiyadiisii in la tarbiyeeyo waxaa ka mid a mucaasharada iyo la dhaqanka wanaagsan in ninkii gabadhii tusaale wanaagsan uu noqdo ila isagiiba hogaamiyaha waxaa ka mid a la dhaqankan wanaagsan ilaahay aayadda uu inagu faray waxbarashadii iyo aqoontii inuu kordhiyo intuba la dhaqanka wanaagsan bay ka mid tahay asxaabtu ridwaanullaahi calayhim lamuu fududayn daliilka ilaahay uu sheegaya qur-aanka iyo xadiidka ku soo arooray lama sahlanayn sida ummad badan oo islaam sheeganaysa uula fudud yahay marka qur-aan yimaado nebigay u celin jireen calayhi salaatu wasalaam tafsiirkiisa oy odhan jireen maxaa looga jeeda aayadda maadaamuu marjicii u weynaayo loola noqonayo qur-aanka u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka nin asxaabiya baa waxa uu nebiga ku yidhi yaa rasuula allahi maa xaqu zawjatina calayh waa kan ilaahay sidaa noo amrae ooridu maxay xaq nagu leedahay nin walba maxay xaaskiisu xaq ku leedahay markaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa saxiix fain adcamtahaa an tudcimahaa idaa adcamta wa taksuuhaa ida ktasayta walaa tadrib ilwajha walaa tuqabix walaa tahjur ilaa fi lbayt markaad wax cunayso waa inaad wax siiso markaad dhar xidhanaysana waa inaad iyadii dhar usoo goyso haddii ay dhacdaba inaad isyar qoonsataan ila waa laba qof oo wada jooge waxyeelaha ka gaadhsiinin wejiga ila waa halkii qofka muunadiisa iyo muuqaalkiisa u wanaagsanayde walaa tahjur ilaa fi lbayt haddii isqabataan ama isu cadhootaanna kuuma banaana inaad guriga uga guurto oo albeerka iyo meel kale aad tagto laakiin waa inaad guriga dhexdiisa uun si ay isu muslixan kartaan aada dhinac kale u durugtaa haddii ay kaliftaba qofkan dumara xaqa ay ninkii ku leedahay waxaa ka mid ah inuu u samafalo alixsaanu ilayha maadaam hiya sadiiqatuhu fi lxayaa maadaama ay la nooshahay oo wehelkiisii ay tahay wixii samafal uu kari karaya waa inaanu waxba ka hakranin ilan ilaahay baa wuxuu ina faray samafalka ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan ilaahay cadaaladna wuu ina faro qofku dee xaqiisii inuu qaato ah samafalna waa layna faray markaa cid aad u samafasho waxa ugu wanaagsan xaaskaaga haddaad cadaalad samayso ood u cadaalad samayso wuxuunaad ka mid noqon doontaa kuwuu nebigu u bushaareeyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu rasuulka ilaahay ku yidhi xadiidkii saxiixa ahaa ee muslim warinayey almuqsituuna calaa manaabira min nuur dadka cadaaladda sameeyaa waxa ay saaran yihiin minaarada dhaadheer ama taawaro dhaadheer baa ilaahay dushooda saarayaa maalinta qiyaamahee dadku dhididkooda ay ku dhex qarsoomaan can yamiin araxmaani wa kiltaa yadayhi yamiin ilaaha raxmaankaa midigtiisay taagayiin labadiisuba waa midige waa kuwaa cadaaladda samaynaya aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahliihim wamaa wullu
وكوا كو عدالة سماية إهل كودة يحكم كودة يوحي أي مدح كي أوريه هذي يوبد كودة وعدالة سماية إهل كودة وحيو عدالة سماية عدة أي كلا حكومة يا رب مركب ليس كاسات كبيرة يسايو dadka ilaahay maalinta qiyaamaha uu korgeynayo sarreysiinaya ayaad ka mid noqonaysa quraanka kariimka ah ilaahay wuxuu ugu manna sheegtay ragga waxyaabo ugu manna sheegtay waxa kamid ah inuu siiyay dumar ay la noolaadaan oo ay weheshadaan oo ay la barwaaqaystaan taasoo ku tilmaamay inay nicmooyinka ilaahay ka mid tahay aayaadka ilaahayna ka mid markaas ilaahay waxa uu min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلهي آياته سعجائب كبضان وحكم ذا سي أي نولش وسي سعون كرتو سي ترنك وسي شري كرا سي قري وسا ما يسمي كرا وبضوك صبحه وحي إلهي إذين أبوري أوريو إذين كون على شيء أو إذين كل مان أو هشتا كالقع عليا نحريس نو إذين نحلقي qofkaasi inta ooridu ay ka maqantay wehelkii uu ka maqan kalgacalkii naxariistiina waa ka maqantay dhadhankii noloshuna waa ka maqantay ninkuna waa sida gabadhuna waa sida waxaynu halkan ku arkaynaa inuu iska batay single motherki iyo single fatherki ruux dumar oo gooni u taagan iyo nin gooni u taagan oo aad moodo sidii malaa'igta inay ka maarmeen lamaanahoodii xalaasha ahaa ma ka maarmayaan qofku weligiiba ha isyeelyeelee dee naftiisa been uma sheegi karayo marka ruuxa dumarka ahina sida ilaahay uu sheegay waxay u baahan tahay nin ay weheshato oo nolol macaan ay wada qaataan oo ubadna uu ka farcamo isagiina wuxuu u baahan yahay oorib u baahan yahay zawjayn waxa loogu magacaabay laba isku lamaan weeye sida shayga beerka ahi labada uu yahay iskabaya waa saas oo kale marka waaxdi way maqan tahay qofkan intuu kali taagan yahay waliba marka aynu ku noolnahay wadcigan ama meeshan gaalada marka lagu nool yahay waxa uu baahan yahay qofkii lamaana xalaal inuu helo si uu cafiif u noqon karo u dhowrsoonaan karo oo xaaraan iyo xumaan iyo ishiiso meel jaleecla uga dhowrsoonaan karo si uu tarmi karo qofkii si diintiisa ay u dhamaystirmi karto marka waxaynu ku dhiiri gelinaynaa walaalaha rag iyo dumarba inuu qofku samaysto wehelkiisa oo ninku had iyo jeer gabadhu ku asturnaada ay jirto oo kelida uu iska daayo ruuxa dumarka ayna inay nin raadsato walow adduunba ha ku raadsatee ila ceeb maahe inay nin wanaagsan raadsataa waxa quraanka kariimka markaa ilaahay saasuu ku tilmaamaya waa baahida la isu qaba daraadeed wey xuquuqda waxa kamid ah ruuxa dumarkii ay ku leedahay ragii min xaqiha cala alwaalid الزواج xaqay waalidka ku leedahay aabba iyo hooyaba waa inay u guuriyaan tanaynu imika ka hadlayno oo aabbo iyo hooyo waa waalidkii xaqa ay gabadhii ku leedahay waxa weeyaan inay u guuriyaan ay la baadi doonaan ciddii ku lamaanaan lahayd ay nolosha la qaadan lahayd odayaasheenii hore waxay odhan jireen ruuxa dumara kolka dhiiggaa caadada uu ka yimaado nabar baa ka qoonmay nabarkaana waxa bogsiin kara uu nin guursada si kale oo nabarkaasi uu ku bogsanayaa ma jiro weligii wuu dhiigayaa haddii kale markaa haddii la doonayo inuu nabarkaasi buugsado waa in lala raadsadaa lamaanaheedii nabarkaa ka bogsiin lahaa u raaxayn lahaa ubad wanaagsanina uu markaa ilaahay uu kala siin lahaa sidaa daraadeed baa xadiidkii saxiixa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi hurayra warinaya waxa uu leeyahy idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh وإلا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير أو عريض مركو يدين يمادن أكرر للدين دين تيس هي أخلاق ديس وقوريها بلهينا هداد ديدان فتنة دعي وين بنبي عليه الصلاة والسلام فتنة ذا سوين عرقنا ومركا قوركو يرى هذا السنة ذا بضتا أوركا بطا ولدك أنا بلهين باي مادة استيلكا بطا عيبتا بضتا waxaa soo dhan mujtamaco isnacaaba yimaada waxaa soo dhan muxuu ku joogsan karaa nabigu ka digayaa asturnaanta marka hablahan teenage-ka ah ee da'yarta ah hooyooyinka haddaad tihiin imika hooyooyinkiiba igu hor fadhidaane la dadaala oo halala raadsada raggii wanaagsanaa dib